Ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadkii hore iyo warbixinada ugu waaweynaa ee ka dhacay Bollywood-ka. Warbixinada ugu xiisaha badan toddobaadkii hore waxaa ka mid ah jilayaasha Shah Rukh Khan, Salman Khan, Ranbir Kapoor iyo kuwo kale oo badan. Shah Rukh Khan iyo Salman Khan waxay mar kale dunida tuseen saaxiibtinimadooda. Salman Khan ayaa toddobaadkii hore ka qayb galay duubista filimka Shah Rukh Khan ee Tawaarikh. SRK ayaana Salman lama filaan uga dhigay hadiyad qaali oo ah gaari Mercedes ah. Waxay mar kale dunida tuseen saaxiibtinimadooda. Ranveer Singh oo gaari ku soo dalxiisay jaceylkiisa Deepika. Toddobaadkii hore Ranveer Singh ayaa u dabaaldegayay dhalashadiisa 13aad. sidaa darteed jilaagan ayaa dadka ka yaabiyey asagoo hadiyad ahaan siiyay gaari Aston Martin ah. Sidoo kale jilaagan kaftanka badan wuxuu magaalada ku soo wareejiyay jaceylkiisa Deepika ayagoo waqti wacan wada qaatay. Govinda oo si weyn uga hadlay doorkiisa laga jara filimka Chaka Jasos. Superstar Govinda ayaa asagoo careysan ka hadlay doorkiisa laga jara filimka Chaka Jasos, asagoona ku tilmaamay in kooxda filimkan qalad ka galeen maadaama asagoo xanuunsan South Africa ula safray kuna soo duubay doorka uu ku leeyahay filimkan. Laakiin haleegan doorkiisa waxaa ka jaray Anurag Basu oo ah directorka filimkan. Sidoo kale filimkan waxaa hogaamiyaal ka ah Ranbir Kapoor iyo Katrina Kaif. Sunil Shetty ama Balwan oo walaac ka qabo in caruurtiisa xilligan qayb ka yihiin Bollywood-ka dhibka badan. Rugcadda Sunil Shetty gabadhiisa Aatiya Shetty sanadkii 2015 ayay Bollywood-ka ku soo biirtay, halka wiilkiis ahaan Shetty asagana dhammaadka sanadkan uu duubis ku bilaabi doonaa filimkiisa koowaad. Haddaba Balwan ayaa walaac xoogan ka qabo sida caruurtiisa fanka Hindiya baaqi ku sii ahaan karaan maadaama xilligan Bollywood-ka noqday meel cadow aadna u dhib badan tahay in laga shaqeysto. Aatiya Shetty ina Balwan filimkeeda koowaad Hero 2015 ayuu soo baxay, wuxuuna noqday filim ganacsi ahaan guuldareystay. Wuxuuna Sunil yidhi aad baan ugu faraxsanahay sida uu haatan ku socdo hanaanka mustaqbalka fanka Aatiya, waana ka hela sida ay filimada u soo dooranayso. Waxaana hubaa hal guuldaro inaysan waxba ka dhimi doonin gabadheeda. Aatiya Shetty waxaa haatan u diyaarsan filimka Mubaarakan oo la jilaysa Arjun Kapoor iyo Anil Kapoor, waxaana la daawan doonaa 28 bishan July. Waana filim shactara ah. Sunil Shetty oo gabadhiisa dhiirigelinayo wuxuu yidhi filimkaygii koowaad superhit ma ahayn, haddana waxaa ii suurto gashay in ka badan 25 sano inaan fanka baaqi ku ahaado. Midaasna waxaa ku gaaray dadaalkayga iyo daacadnimadeeda. Laakiin xilligan la joogo qof daacad ah fanka kuma jirto. Jilayaasha garab isma siiyaan ee ayaga ayaa wax isku diidaan. Waxaan walaac ka qabaa sida caruurteeda baaqi ku ahaan karaan Bollywood-ka dhibka badan xilligan.